kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal galab wanaagsan jimco wanaagsan meel walba oo adduunka ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha gaar ahaan kubadda cagta iyo sheekooyinkii ugu dambeeyay oo ay wargeysyadu qorayaan. Barcelona oo heshiis cusub ka saxiixatay mid ka mid ah xidigaheeda Zinedine Zidane oo u duulay Qatar halkaas oo uu ku saxiixi doono heshiiska uu ku noqonayo macalinka koox cusub. waxyaabaha kale oo aan soo qaadi doono waxaa ka mid ah Arsenal oo heshiis la gaartay mid ka mid ah xidigaha reer Brazil ee ay aad u doonaysay kaasoo hadda ku soo jeeda magaalada London ee wadanka Ingiriiska. waxaan sidoo kale eegi doonaa waxyaabihii ku qornaa emailkii hanjabaadda ahaa ee Erik ten Hag uu u diray ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Manchester United. sheekooyinka kale aan soo qaadi doono waxaa ka mid ah saddexda lambar ee suuragalka ah ee midkood uu qaadan doono saxiixa cusub ee kooxda Liverpool Darwin Núñez. balse intaan sii gudagelin muuqaalkan waxaan ka codsanaynaa inaad like inoo saarto saaxiibada cusubna waxaan leenahay soo dhawaada oo subscribe inoo saara barteena YouTube-ka. mahadsanidin. aynu ku horeynay kooxda kubadda cagta Barcelona ee wadanka Spain ayaa heshiis cusub ka saxiixatay ciyaaryahankeeda la yiraahdo Sergio Roberto ayaa heshiiska u dheereeyay kooxda ka arimisa garoonka Camp Nou ee Blaugrana waxaana uu ku daray qandaraaskiisa 1 sano oo dheeri ah. Sergio Roberto daafacan waxa uu kooxda ku ciyaartay Camp Nou u saxiixay qandaraas ku eg ilaa sanadka 2023 kadib markii uu heshiiskan cusub markaa qalinka ku duugay. Sergio Roberto waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu saxiixa qandaraaskan. dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa dhankeeda heshiis buuxa la gaartay xidig reer Brazil ah oo xirfadle ah oo markaa muddo ay ku raad joogtay. kooxda Arsenal ayaa dhameystirtay saxiixa xidiga mucjisada da'da yar ee reer Brazil ninka la yiraahdo Marquinhos oo markaa in muddo ah ay doonaysay. waxaana ugu dambeyntii uu usoo duulayaa magaalada London ee caasimadda Ingiriiska si uu u dhameystiro ku biiristiisa Gunners. Mikel Arteta ayaa bilihii ugu dambeeyay ku raad joogay laacibkan da'da yar oo markaasi ay ku tartamayaan kooxo badan oo qaarkood ay ka dhisan yihiin wadanka Talyaaniga. waxaana Arsenal ay si degdeg ah ula xiriirtay kooxda uu ka tirsanaa da'yarkan ee la yiraahdo Sao Paulo si ay markaa isula meel dhigaan iibka laacibkan. waa 19 sano jir. Arsenalna waxay kala soo baxday 3 milyan oo euro oo markaasi ay u shubaysaa ama siinaysa naadiga Sao Paulo ee wadanka Brazil sida uu xaqiijiyay suxufiga Talyaaniga ah ee dhanka suuqa aad ula socda ee la yiraahdo Fabrizio Romano. qoraal uu soo daabacay ayaana markaa suxufigani waxa uu ku yiri Arsenal iyo Sao Paulo waxay markaa ugu dambeyn heshiis ka gaareen xidiga garab weerarka reer Brazil ee Marquinhos. wax waliba oo heshiiska ah waa la dhameystiray waxaana uu ku kacayaa lacag dhan 3.5 milyan oo euro. Marquinhos ayaa la filayaa inuu soo gaaro magaalada London ee caasimadda wadanka Ingiriiska si uu ula midoobo kooxdiisa cusub ee Arsenal ka hor inta aan la gaarin 8 bisha July markaasoo kooxda Gunners ay u safrayso wadanka Jarmalka oo ay ciyaar saaxiibtinimo kula dheeli doonto naadiga la yiraahdo FC Nürnberg. dhinaca kalena tababare Zinedine Zidane ayaa la soo warinayaa inuu u duulay wadanka Qatar halkaas oo markaa uu ku saxiixayo heshiis cusub oo uu ku noqonayo tababaraha kooxda kubadda cagta PSG. tababaraha Faransiiska ee Zinedine Zidane ayaa u safray wadanka Qatar halkaas oo diyaarad qaas ah uu u qaatay waxaana uu kulamo muhiim ah kula yeelanayaa mas'uuliyiinta naadiga PSG oo markaa doonaya in ay macalinkan ku bedelaan hogaamiyahooda haatan ee Mauricio Pochettino. xalay ayaa la sheegay in go'aan laga gaaray Mauricio Pochettino isla markaana shaqada laga ceyrinayo. waxaana sawir uu soo dhigay baraha bulshada gaar ahaan Instagram-kiisa uu markaasi ku bixiyay qash ah inuu ka tagayo garoonka Parc des Princes. sawirkan waxa uu ka turjumayaa in ciyaartoyda iyo taageerayaasha uu ku macsalaamaynayo kadib markii isaga iyo labadii koob ee uu la qaaday kooxdaasi ee horyaalka Ligue 1 uu markaa ku soo bandhigay baraha bulshada. sida ay warinaysa jaradda Mundo Deportivo kooxda PSG ayaa go'aamisay in shaqada ay ka ceyriso Mauricio Pochettino waxaana lagu bedelayaa Zinedine Zidane oo in muddo ah ay daba socdeen kadibna ay u muuqdaan inayba ku qanciyeen inuu maamulo kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska. wararku waxay intaa ku darayaan in Zinedine Zidane uu markaasi u safrayo wadanka Qatar si markaa heshiiskiisa halkaas loogu soo gabagabeeyo. ilaa saacadaha dambe ee Brito ayaa markaasi la filayaa in lagu dhawaaqay heshiiska tababare Zinedine Zidane uu ku noqonayo hogaamiyaha cusub ee kooxda PSG. Zidane oo 49 sano jir ah ayaan wax shaqo ah qaban tan iyo dhamaadkii xilli ciyaareedkii 2020-2021 markaas oo uu ka tagay naadiga Real Madrid. dhinaca kalena saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta ah ee Liverpool ayaa isku diyaarinaysa shaacinta saxiixii ugu qaalisanaa
kaasoo noqonaya weeraryahanka reer Uruguay ee Darwin Núñez oo ay kala soo wareegayaan naadiga Benfica. Liverpool ayaa wada hadalla meel fiican maraya, waxaa la sheegay inay markaasi kula jirto naadiga Benfica iyadoo markaa uu qarka u saaran yahay Darwin Núñez inuu u dhaqaaqo garoonka Anfield. Haddaba waxaa markaasi la leeyahay 68 milyan oo geni oo lagu darayo 17 milyan oo geni oo markaasi ku xirnaan doona bandhiga uu sameeyay ciyaaryahankan ayay Reds 85 milyan markaasi ku soo qaadan doontaa ciyaaryahan Darwin Núñez. Laacibkan ayaa Liverpool ay markaasi u jeesatay saxiixiisa markii xidiga reer Senegal ee Sadio Mane uu go'aansaday inuu ka tago Anfield xagaagan kadib 6 sanadood oo uu markaa ku qaatay naadiga ka dhisan gobolka Merseyside. Haddaba Darwin Núñez ayaa markaa isagu horey waxaa markaa uu soo xirtay lambarka 11aad oo xulkiisa qaranka 11 kulan oo uu u dheelay 2 gool ugu dhaliyay, sidoo kalena lambarka 9aad ayaa markaasi uu caan ku yahay oo uu ku dhaliyay 34 gool xilli ciyaareedkii tagay oo uu u ciyaaray naadiga Benfica. Lambarka 11aad waxaa markaasi xiran Mohamed Salah oo markaa ka qaatay Roberto Firmino sanadkii 2017 halka lambarka 9aad xidig reer Brazil ee Firmino uu xiran yahay. Sidaas darteed labadaasi lambarba oo ay kale sitaan Salah iyo Firmino ma heli doono Darwin Núñez maadaama labada xidigba ay sii joogi doonaan garoonka Anfield. Lambarada macquulka ah ee saddexda ah ee Darwin Núñez uu u xiran karo Liverpool ayaa la sheegay inay kala yihiin in uu isku taago lambarka 10aad ee uu baneynayo Sadio Mane oo ku sii jeeda naadiga Bayern Munich ee wadanka Jarmalka. Haddii uu kaas heli waayana waxaa markaasi uu qaadan doonaa lambarka 24aad. labadaasi lambar marka laga soo tago sidoo kale waxaa macquul ah bay leeyihiin wargeysyada qaar in lambarka 21aad looga siibo ninka la yiraahdo Costas Tsimikas oo markaa ka mid ah daafacyada kooxda Reds. Ugu dambeyntiina tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Manchester United ee Erik ten Hag ayaa markaasi digniin u diray dhammaan ciyaartoyda kooxdiisa kadib markii uu mid waliba si shakhsi ah ugu diray email xambaarsan hal qoraal oo markaa isku mid ah. Manchester United ayaa kal ciyaareedkii dhamaaday waxaa markaa ay ku dhameysatay kaalinta 6aad ee horyaalka Premier League, waxaana la sheegay in qolka labiska ay markaa xurgufi ka dhaxayso ciyaartoyda qaar, sidoo kalena 2 ciyaaryahan ay ku dhex dagaaleen xerada tababarka. Ten Hag ayaa la sheegay in markaa lala socodsiiyay sida uu xaal ahaa, waxaana taasi ay keentay in uu shuruuc iyo habraacyo cusub markaasi ku soo rogo ciyaartoyda kooxdiisa, midkii ka talaabsadana markaasi uu ku ciqaabi doono. Waxaa Ten Hag uu ciyaartoydiisa u sheegay in aysan meel uga banaaneen waxyaabaha abuuraya hadalhaynta dibadda ah ee ka baxsan naadiga, waxaana markaasi uu doonayaa in xurgufta ciyaartoyda ka dhex jirtaa xal loo helo uusan ogolaan doonin. Qof ka tirsan kooxda Manchester United oo aan la magacaabin ayaa wargeyska The Sun ee wadanka Ingiriiska u sheegay tababaraha cusub waxa uu email u diray ciyaartoyda kooxda koowaad, waxaana uu u sheegay in kooxdu ay tahay naadi kubadda cagta ah isla markaana uusan jirin xidig kale markaasi ka muhiimsan. Qofkan oo la sii hadlay wargeyska The Sun ee Ingiriiska waxaa hadalkiisa uu intaa ku sii daray waxa uu ku adkeeyay dhammaan ciyaartoyda kooxda inuu doonayo in ay tababarka si adag u qaataan isla markaana tababar kasta uu yahay sida ciyaar la dheelayo kulan caadi ah oo kale. Ciyaartoyda ayuu u sheegay in heerka taam ahaanshahooda uu markaasi noqdo midka ugu sareeya ee ay abid gaari karaan, haddii ay sidaasi sameyn waayaanna ay daaqada ka bixi doonaan. Ten Hag ayaa ciyaartoydiisa markaasi u sheegay in midkooda tababarka markaa ka soo bixi waaya ee tababarka adag qaadan waaya uu ku bedeli doono ciyaartoyda da'da yar ee ka soo baxaya kuliyadda naadiga Manchester United, isla markaana uu iyaga fursad siin doono. Waad ku mahadsan tahay ilaa gabagabada muuqaalkeena haddii aad nala soo gaartay. Waxaan ahay Haroon Yusuf Qasaaro. Muuqaalka like saar siina gudbi. Mahadsanid.